بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan hooyada uurka leh cunada ku haboon xilliga ramadaanka. sidaan ognahay inta badan bulshadeena waxay isticmaalaan cuntooyin lid ku ah caafimaadka xilliga ramadaanka, qaasatan marka la gaaro afurka. waxay isticmaalaan cuntooyin culculus ama cuntooyin ay ku badan tahay dufanka sida sambuusaha, mashmashka, burka iyo waxyaabo la mid ah. hooyada uurka leh uma wanaagsana in ay isticmaasho amaba ay cuntooyinka ku badan dufanka. sidaan ognahay dufanka wuxuu leeyahay dhibaatooyin badan oo xagga caafimaadka ah. sidoo kale cunooyinkaas aan soo sheegnay waxaa ku jiro waxyaabo acid ah oo aan jirka u wanaagsaneen, maadaama cusbadii lagu darayo iyo qudrawaad kale, basbaaskii oo kale ay ka mid tahay. uma wanaagsan marka hooyada uurka leh inay ku afurto cunooyinkaas. dadka inta badanna waxay caado ka dhigteen xilliga ramadaanka in ay cunooyinkaas isticmaalaan. sidoo kale uma wanaagsana uurjiifka cunooyinkaas dufanka ay ku badan tahay. waxaan ka hadlaynaa haddii ilaah yiraahdo waxyaabaha ku haboon inay cunto hooyada uurka leh xilliga ramadaanka. maxaa ka mid ah cunooyinka ku haboon? furuudka oo kale, qudaarta cagaaran. sidaan ognahay qudaarta cagaaran waxaa ku jiro faa'iido aad iyo aad u ballaaran oo ku wanaagsan hooyada uurka leh. sidoo kale furuudka waxaa ka mid ah hooyadana isticmaasho qaraha, tufaaxa, muuska, bocorka, salaatada, yacni waxyaabo badan oo macdan ah, oo fitamiin ah, oo calcium ah, oo jirka iyo uurjiifka labadaba aysan ka maarmin ayaa qudaartaasi ku idil. faa'iidada ay leedahay isbinajka ama koostada ayaan ka hadlaynaa. hooyada uurka leh waxaa u wanaagsan in ay isticmaasho koostada, waxyaabaha ay Soomaalidu u yaqaanaan qudaarta cagaaran ee koostada la yiraahdo. koostada waxyaabaha ay hooyada uurka leh faa'iidada ugu tahay waxaa ka mid ah in ay siinayso fitamiinadii oo idil ayaa koostada ku jira. sidoo kale uurjiifka way caawinaysaa. hooyada uurka lehna waxay siinaysaa laastiibo ama iyadoo caloosha u jilcinaysa. xilliga dhalmada markii la gaarana aad iyo aad ayay calooshaas jilicsan hooyadana u caawinaysaa si fudud si uurjiifka haddii ilaa yiraahdo uu banaanka ugu yimaado. waxaa kaloo ka mid ah bocorka. waxaa jiro cunooyin oo sharabaadka laga sameeyo, sharabaadka ama aan dhahno mashaalida. inta badan Soomaalida mashaali waxay u yaqaanaan cuntooyinka culculus oo la shiido oo caano lagu daray, laakiin waxaa jira cuntooyin sharabaad laga sameeyo sida bocorka oo kale, koostada la shiido oo kale, bataati macaanka, baamiyaha. intaasoo idil waxaa isku jirto faa'iidooyin aad u tiro badan haddii ay ahaan lahayd calcium, magnesium, potassium, vitamin A, vitamin C, vitamin K oo intaba uusan ka maarmin uurjiifka. hooyadana waxay ugu baahan tahay inta ugu badan oo fitamiin ah xilliga ay uurka leedahay, sababtoo ah koostada aad markii ay hooyada u isticmaashay waxay helaysaa calciumti ayaad aad u adkaanaysa. waxaa arkaysaa hooyo uur leh oo ku dhahaysa lafaha ayaa xanuunaya, ma kici karo. dhalashada dambe ee cunugana saameyn ayaa ku yeelanaysaa markii ay yaraato calciumta hooyada. sidaas daraadeed isticmaalka koostada faa'iido badan ayaa ku jirto. waxaa kaloo ka mid ah cunooyinka ku haboon in ay hooyada isticmaasho waxa Soomaalida ay tiraahdo bataati macaanka. bataati macaanka waxaa ku jira borotiin oo hooyada aad ugu wanaagsan, kaasoo ka caawinaya qaadasho ahaan cuntada iyo difaaca jirka. bataati macaanka faa'iidooyin badan ayaa ku idil, caafimaad ahaan wuu wanaagsan yahay in ay hooyada isticmaasho. sidoo kale waxaa ka mid ah cunooyinka hooyada isticmaali karto cuntooyinka qolofta leh sida salbukada oo kale, sarreenka ama qamadiga oo kale, masagadii oo calcium ay ku jirto. cuntooyinkaas ayaa aad ugu wanaagsan xilliga ramadaanka in ay hooyada isticmaasho. haddii aan dib ugu laabano cuntooyinka effectiga ama saameynta ku leh ee hooyooyinka inta badan isticmaalaan waxaa ka mid ah burka ama mashmashka. burka waxaa lagu daraa qamiir ama yeast. qamiirkaasna wuxuu saameyn ba'an ku yeeshaa hooyada uurka leh isagoo dhibaatooyin kala duwan ku sameynayo.
caafimaad ahaan qofka dibra ayuu keenaya sababtoo qofkii maanta dhan Soomaaliya markii uu isticmaalo waxyaabo leebit lagu daro uu dibraya qofka xajmiga ama qaadashada cuntadana way yaraanaysaa maxaa yeelay qamiir markuu qofka cuno uu dibraya zaad ayuu dibraya marka ma wanaagsana cuntooyinkaas inay hooyada cunto oo yeastiga lagu daray waxa kale oo kamid ah ukunta oo aad loo kariyay hooyada iyo uurjiifka inta way ku wanaagsan tahay ansalaatada kamid ah kaaroodka kamid ah waxa kale oo kamid ah cunooyinka ku wanaagsan hooyada uurka leh inay cunto xilliga ramadaanka hilibka cad malaaygi ama digaagi waxa kale oo aad ugu sii wanaagsan in ay hooyada qudaarta badsato qudaar badan oo faa'iido badan u leh jirka iyo caafimaadka ayaa wadankeena yaalo waxa kamid ah batiiqiya kamid ah qajaarka kamid ah baamiyaha kamid ah liin bambeelmada ama liin macaanta kamid ah muuska kamid ah marka cuntooyinkaas aan soo sheegno idil ee qudaarta ugu badan inta badan waxay caawinaad siinayaan uurjiifka iyo hooyada labadaba ma wanaagsana hooyada uurka leh in ay cunto kasto waxaana aad ugu sii wanaagsan in ay dhakhtarka la xiriirto si uu ugu sheego cunooyinka faa'iido leh ama waxyaabaha caawinaya uurjiifka ay kala tashato maadaama lagu guda jiro bishii barakasneed ee Ramadaan hooyadana maanta dhan ay soomaneed kuma wanaagsana in ay cunto waxyaabo caafimaadkeeda dhibaato u keenaya Ramadaanka waa bil barakeysan laakiin way ka duwan tahay mararka kale maxaa yeelay qof maanta dhan soomanay oo tabartiisa daciiftay hadii uu cuno dufankeeda ku badan yahay tusaale sambuuska kale saliid ayaa lagu sameeyaa waxa lagu daraa waxyaabo acidka ku badan yahay sida basbaas lagu daraa milix lagu daraa intaba waxay saameyn baan ku leeyihiin caafimaadka jirka ee hooyada waxa arkaysaa hooyo uur leh ku dhahayso laab jeex ayaa ihaya ama laab dilaac waxay dadku dhahaan maanta dhan baa soomaneed hooyo waxaad cuntay dhanaan dufan xagee ku horeysa marka in yaani caafimaadka jirkaaga isqaldo waa muhiim in hooyada uurka leh ay ilaaliso caafimaadka jirkeeda iyo uurjiifka labadaba waxayna ku ilaalin kartaa hooyada in ay isticmaasho cuntooyinka faa'iidada u leh cuntooyinka laga helayo calciumta cuntooyinka fitamiinaadka ee ku badan yihiin sida qudaarta waxaan kala ku talineynaa hadii Ilaahay idmo in ay hooyada isticmaasho cuntooyinka faa'iidada u leh jirka insha Allah mawduucyada soo socda hadii Ilaahay waxa uga hadleynaa suxuurto kaleeto waxyaabaha ku haboon in ay ku suxuurato hooyada uurka leh hadii Ilaahay yiraahdo sidoo kale hooyada uurka oo leh kalimaha dadka waaweyn iyo dadka dhalinyarada intaba uma wanaagsana in ay cunaan cuntooyinka dufanka ay ku badan yihiin cuntooyinka dufanka ay ku badan yihiin ama cunada culus hilib la cunaa baasta la cunaa yaani carbohydrate la cunta anjela cunta bura cunta sambusa cunta ايش فائده carbohydrate isku dadashay marka hooyada uurka leh ee anagoo si qaas ah u fiirinayna ayaa hadana dadka oo dhan aysan u wanaagsanin in ay cunaan cuntooyinka ay ku badan yihiin carbohydrate-ka jirku wuxuu u baahan yahay isku dheelitirnaan in uu helo isku dheelitirnaantaasna waxa kamid ah in la isticmaalo raashinka diirka leh iyo qudaarta maadaama hooyada uurka leh oo qof bini aadan ku dhaxnool yahay nafaqada jirka lagu la qaybsanayo hadii fitamiinkaaga iyo borotiinkaaga iyo calciumtaadaba ay hooseeyaan sidaas si la mid ah ayuu uurjiifkana u hooseenayaa fitamiinkiisa iyo calciumkiisa iyo borotiinkiisa inta badan waxa ilmaha markay dhashaan calciumta ku yarta lugahooda waa isku duubmaan isma fidin karaan ilaa umulsada ama ay caawinaad siiso oo ay lugaha u kala bixbixiso hooyada cuntada dheelitiran cunto waxaad arkaysaa ما شاء الله عنق جركيس إنه قروح بدنيا هواي جركيده قروح بدن تاعي مركو دشة وإسكال بحنا عادين وحنا عنق أورجيفك إسكال بحنا عيا أو لوجيه سكال جديد عيا أو جمع سنة عيا هدي أدركت عنق مركو دشة جمع سنة عيا وحد لسان كالسيامته وكسره هلا أنتوا وكجري على شهوي ديسا sidoo kale waa hooyada uurka la waa in ay ku baraarugtaa in ay ka taxadirtaa caafimaadka uurjiifka iyo keedaba maxaa yeelay cuntooyin badan oo faa'iido leh oo fitamiinaad leh oo borotiimo leh oo calcium leh oo magnesium leh ay macdan oo jirka u baahan yahay ayaa ku idil koostada ayaa ku idil ansalaatada kaaroodka
baamiyaha, qajaarka, barbarooniga. marka hooyada ayada cuntooyinkaas heli kara maxaa ku kalifaya in ay isticmaasho cuntooyin culus ama cuntooyin duxdu ku badan tahay sida saliid oo kaleeto. sidaas daraadeed hadda xadiraan hooyooyinka uurka leh xilliga ramadaanka hadda xadiraan insha Allah taala. soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.